Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalka dhakhtarkaaga. Kanaalkan waxaad kala socon doontaa cashar caafimaad oo taxanayaal ah. Muuqaalkani kooban waxaynu isla eegi doonaa sharaxaad yar ee kooban aynu ka bixinay seelku. Waa maxay seel? Muxuu ka kooban yahay seelku? Iyo muxuu inoo qabtaa seelku? Ayaynu lecture-kan isku eegi doonaa. Qiyaas ahaan 100 trilyan oo cells ah ayaa jirkeena ku jiro. Nolosheenana waxay ka bilaabataa hal seel ama single cell. Maalin walba jirkeena wuxuu soo saaraa millions of cells sidii u bedelaan kuwa gaboobay ayagoo sameynayo inay iskoobiyeyaan. Unugyadu ama cell haddaynu Soomaali u turjumno waxa weeyaan unug. Haddaynu qeexno waa waxa ugu yar ay leeyihiin nooluhu ama aasaaska qaab dhismeedka dhammaan nooluhu. Noolo walbana wuxuu ka bilaabmaa hal cell. Cellska si guud ahaan waxaynu qaybi doonaa laba qaybood. Qayb lagu magacaabo eukaryotic cell iyo qayb lagu magacaabo prokaryotic cell. Waxyaabo badan ayay kala duwan yihiin. Eukaryotic cell waxaa tusaale u ah animalska iyo plantska, halka prokaryotic cellka ay tusaale u tahay bakteeriyada. Cellka si guud ahaan waxyaabo badan ayuu ka kooban yahay. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddaynu soo qaadano wuxuu ka kooban yahay cell membrane, number 2 cytoplasm, number 3 nucleus, number 4 endoplasmic reticulum, number 5 mitochondria, chloroplast oo kaliya dhirta laga helo, Golgi apparatus iyo number 8 lysosomes ayuu ka kooban yahay cellku. Marka mid ayaynu gali doonaa sharaxaad yar oo kooban ayaynu ka bixi doonaa sidoo kale. Haddaynu soo qaadano kan ugu horeeyo oo ah cell membrane. Cell membrane waa dahalka sare ee cellku wuxuuna ka kooban yahay phospholipid bilayer oo macnaheedu tahay wuxuu ka kooban yahay phosphate iyo lipid. Wuxuuna leeyahay phosphate group oo ku milmi kara biyaha, halka wuxuuna sidoo kale leeyahay fatty acid oo ku milmi karo fatiska. Shaqadiisa ugu weyn waxa weeyaan inuu difaaco cellka waxyaabaha foreignska dibadda ka imaanayo, inuu ka difaaco cellka ayaa ah shaqada ugu weyn cell membrane. Sidoo kale waxaynu gudbeynaa qaybta labaad oo ah cytoplasm. Cytoplasm waa fluidska ku dhex jira cellka. Shaqada ugu weyn ee cytoplasmka ay qabato waxa weeyaan inuu organelleska uu meeshooda ku xajiyo. Maadaama uu yahay fluids ku dhex ka hooseeya cell membrane-ka, wuxuu sameynayaa inuu xajiyo ama uu hayo organelleska position-kooda ku hayo sidii u dhaqaaqin. Number 3 waxaynu isla eegi doonaa nucleus oo ah centerka. Waa centerka laga maamulo dhammaan cellska, ama waxaynu dhihi karnaa waa madaxtooyada cellka. Waxaa ku jiro waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay nucleolus. Sidoo kale waxaa ku dhex jiro DNA oo ah halka information-ka ku qoran yihiin. Sidoo kale waxaa ku dhex jiro RNA. Number 4 waxaynu isla eegi doonaa endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum waxay gudbisaa proteinska iyo lipidska la soo sameeyay. Waxay u gudbisaa Golgi apparatuska. Laba qaybood ayaynu loo qaybiyaa, rough endoplasmic reticulum iyo smooth endoplasmic reticulum sida sawirka kaaga cad. Number 4 waxaynu isla eegi doonaa mitochondria oo ah powerhouse of the cell. Waa meesha energy lagu sameeyo oo cellka isticmaali lahay. Marka tusaale waxa weeye glucose tusaale markii soo gasho cytoplasmka waxay aadaa mitochondria sidii 7 unit of ATP loogu soo sameeyo. Number 6 chloroplast. Chloroplast sideen hore soo sheegnay waxay u gaar tahay plant cellska. Marka shaqada ugu weyn ay qabato waxa weeyaan waxay u shaqeysaa inay tamarta iftiinka cadceedda u beddesho sonkor si ay u isticmaali karaan unugyada. Iftiinka cadceedda laga helayo ay plantska ka hesho ayay waxay u beddeshaan sonkor sidii unugyada as energy u isticmaasho. Sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa Golgi apparatuska. Waa halka lagu xirxiro proteinska iyo lipidska la soo sameeyay. Cellku markuu proteinka uu ku sameeyo ribosomka oo ah halka lagu soo sameeyo proteinska
waxaa loo soo diraa raf endoplasmic reticulum, halkaas oo modification lagu soo sameeyo. Kadib asigoo physical ama jawaan ku jiro wuxuu soo aadaa Golgi apparatus-ka, halkaas oo lagu sameeyo processing in proteinka qaar waxaa looga baahan yahay. Marka processing ayuu lagu soo sameynaya. Marka si guud ahaan proteinska qaar waxaa looga baahan yahay selka gudihiisa, qaarna waxaa looga baahan yahay selka dibadiisa. Marka Golgi apparatus wuxuu sameynaya inuu calaamo u soo yeelo proteinska si loo ogaado in ay proteinskan looga baahan yahay selka gudihiisa ama selka dibadiisa. Number 8 waxa u dambeeyay organelliska lysosome. Lysosome waa meesha lagu burburiyo waxyaabaha selka uusan u baahnayn. Marka waxaa ku dhex jiro ama wuxuu ka kooban yahay digestive enzymes oo burburiyo oo qayb qaato inay qashinka burburiyaan. Markuu burburiyo qashinka selka uu leeyahay, wuxuu sameeyaa lysosome-ka inuu dibadda iskaga soo saaro. Ugu dambeyntii selku waxaynu dhihi karnaa waa wadan dhameystiran camal, sababtoo ah wuxuu leeyahay warshado wax soo sameeyo sida ribosome-ka oo u sameeyo proteinska. Sidoo kale wuxuu leeyahay xuduudiye ilaaliyo oo ah cell membrane-ka. Sidoo kale wuxuu leeyahay warshad koronte oo ah mitochondria oo ah halka laga soo saaro energy-ga selka. Sidoo kale wuxuu leeyahay madaxtooye oo ah nucleus oo halka laga maamulo laga xukumo dhammaan selka. Lecture-keena kooban halkaas ayuu ku egyahay. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaan kaa codsanayaa inaad channel-ka subscribe inoo saarto si aad ula socoto casharo caafimaad oo taxanayaal ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.